bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walbo caalamka aad ka joogtaan kuna soo dhawaada warka telefishinka Somali Cable oo xilligan idinkaaga imaanaya stuudiyaha magaalada Nairobi anigoo Cabdullaahi Axmed Cali ayaana u diyaaraa qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay sharciga shaqaalaha rayidka kadib markii maanta ay yeesheen kulankoodii khamiisla ahaa baarlamaanka Puntland ayaa maanta ka hadlay arrinta Sool iyo Tukarraq oo Somaliland dhawaan ay ka qabsatay Puntland wafdiga socda guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa maanta waxay gaareen magaalada Garowe gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo wafdi arsala oo hogaaminayana waxay u duuleen wadanka Nigeria intaasi daawadayaal waa qaar kamid ah qodobada warka aad ku daawan doontaan u diyaar garooba wararkaasi warar kale oo faahfaahsan goordhow balse aan ka hormariyo qadaro adeega bulshada ah golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay sharciga shaqaalaha rayidka kadib markii maanta ay kulankoodii khamiisla ay ku yeesheen magaalada Muqdisho sida faahfaahinta warkan oo inagu soo diray wariyahayaga Axmed Cabdi Cali kulanka golaha wasiirada oo shir gudoominaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxa looga hadlay qodobo badan waxaana warbixino laga dhageystay qaar kamid ah wasiirada xukuumadda xubnaha golaha wasiirada ayaa cod wada ogol ku ansixiyay sharciga shaqaalaha rayidka ee dowladda oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay soo diyaarisay sharcigan ayaa ah sharci lagula xisaabtamayo shaqaalaha dowladda sidoo kalena xuquuq ay ku helayaan shaqaalaha sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir Saalax Jaamac oo ka warbixiyay sharciga shaqaalaha rayidka dood dheer kadib golaha wasiirada waxay si aqlabiyada ku ansixiyeen sharcigaas isaga oo dhaqan gali doono tan oo ah runtii mid shaqaaluhuna ay daryeelkooda ku heli doonaan isla xisaabtan dhabahna uu jiri doono aysan dhici doonin qof shaqaale rayid oo shaqaynayn inuu mushaar iska qaato golaha wasiirada ayaa warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale warbixinta wasiirka ayaa la xiriirtay howlgallada ciidamada dowladda ay ka wadaan labada gobol ee Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe iyo safarka wasiirka amniga uu shalay ku tagay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe wasiirka wasaaradda warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaa tilmaamay in wasaaradda amniga ay ka shaqeynayso sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka guud ee gobolada dalka wasiirka amniga Ducaale wuxuu sheegay in dawladdu ay dadaal badan gashay sidii labada Shabeelle iyo gobolka Banaadir amnigoodii talaabo fiican looga qaadi lahaa ilaa haddana lagu guuleystay in kooxo maleeshiyaadka al-shabaab la soo qabtay ilaa 20 qof inta hadda la hayo sidoo kalena uu magaalada Balcad shalay u gaaray si loo xaqiijiyo amniga deegaanadaas inay maaragtay wanaagsan yihiin idil ka muujiyo ugana mahadceliyo shacabka doorka ay ku qaadanayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya wuxuu maanta horgeeyay safarkii shaqo ee uu ku tagay dalka Turkiga iyo heshiisyadii taariikhiga ahaa ee uu la soo saxiixday dowladda Turkiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa wuxuu xubnaha golaha wasiirada u sheegay in heshiisyo muhiim ah uu la soo saxiixday dowladda Turkiga sidoo kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Deeqa Yaasiin ayaa xubnaha golaha wasiirada waxay ugu warbixisay halka ay marayaan xulista xubnaha guddiga madaxa banaan ee xuquuqul insaanka oo ah 9 xubnood Axmed Cabdi Cali Somali Cable TV magaalada Muqdisho golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo maanta lahaa shirkoodii khamiislaha ayaa maanta waxay meel mariyeen indisi sharciyeed ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda ganacsiga iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle kulanka golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee khamiis kasta ku yeesheen magaalada Baydhabo ayaa maanta waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dagaaladii dhawaan ka dhacay deegaanada Goobgaduud iyo Deynunay oo ay hoos yimaadaan magaalada Baydhabo isla markaana kulankaasi waxaa lagu ansixiyay indisi sharciyeed ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha maamulka koonfur galbeed oo ugu dambeyntii ay golaha wasiiradu ay ansixiyeen
kulankaasi waxaa shir gudoominayay gusimaha madaxweynaha maamulka mudane maxamed xasan fiqi markuu kulankaasi soo gabagaboobay waxaa warbaahinta ugu warbixiyey waxyaabihii kulankaasi looga hadlay afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed nuurudiin abuukar xaaji jaamac ka bixiyey dagaaladii ka dhacay deegaanada koonfur galbeed oo sidii cadowga ee al-shabaab loogu jibiyey dagaalada kadib waxaa halkaas hindi sharciyeed ama qaab hindisiga sharciyada maaliyadda soo bandhigay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan sate waxaana asigana uu jeediyey qaabkii xeerkii dakhli aruurinta xeerkii maaliyadda dadweynaha iyo xeerka canshuur aruurinta intaa kadib golaha wasiirada way ka doodeen kadib waxay ansixiyeen cod buuxda ay ku ansixiyeen xeerarka saddexda aan soo sheegnay saddexdii markay ansixiyeen kadib waxaa loo soo bandhigay ama wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ay soo bandhigtay xeerka hindisa sharciyeedka wasaaradda sidoo kale golaha wasiirada way ka doodeen arrintii markay ka doodeen kadib waxay ansixiyeen hindi sharciyeedkii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sidoo kale waxaa halkaas maanta soo bandhigay hindi sharciyeedkiisa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waana loo ansixiyey dhammaantooda sida manaas ciidankii dawladda koonfur galbeed ee garabkeeda ciidanka xoogga ay ku tageen oo ay ugu soo furteen nimankii shabaab ahaa mootooyin ay ku dagaalamayeen sidoo kale ay ka qabteen 5 askari oo kuwa nabadiidka ahaa waxayna fasaxeen maxaabiista halkaas ay ku haysteen ay dhibaatada ku hayeen qaarkoodba ay soo gaareen magaalada baydhabo marka sidoo kale waxaa barbar socday kulankaasi kulan kale uu kusimaha madaxweynaha uu la qaatay xildhibaano ka socday dowladda federaalka iyo maamulka gobolka baay kaasi oo looga hadlay arrimaha abaaraha dib ugu soo cusboonaaday deegaanada maamulka koonfur galbeed uu ka aramiyo waxaana kulankooda kadib warbaahinta la hadlay xildhibaanadii kulankaasi ka qayb galay anoo ka hadalaaw magaca guddiga difaaca baarlamaanka ahna gudoomiyaha guddiga difaaca way baaqan diray hay-adaha amniga sida maahay wasaaradda gaashaandhigga amisom consul security inay dadkan lahaa barakiciyo haayo laka reebo gooboyo ku barakacayaan sababtoo waa 3 bilood ka hor tirada roogdooda haytay ilaa iyo 30,000 oo qoys haytay geekar way maraayda 39,000 oo qoys hal bil gudaantiya 9,000 oo qoys yaa barakacday oo kooytay maahay magaalada baydhabo kooytay tan labaad xildhibaanada federaalka koonfur galbeed mashaaradooda inay u jaraan waay biluun hadaa dareerta xaalad adag la ka jar guddi gobolka rooga guddi oo heer waxa wala rooga meel raay maamul koonfur galbeed rooga oo diyaar walaayna xildhibaanada federaalka intuu qaadna kaalintan ku jeysana xildhibaan kasta meel raay biluun hadaa dareerta mashaarje kala bar haatoy in lin jara shacabkii uu matalaay oo may uu matalaanay meel raay wakiilkeen ku hayni oo dhibaataysan biilan wal ku daran ma baydhabo hadaa safka la ka jar dameero aragooyta xildhibaanada koonfur galbeedna wala ku fadaanaysaa soo kale yoona qoondadii inta ka daran oo meel raay wasaaradda gargaarka iyo ku fadaanay iyo gudoomiyaha gobolka in guddiyoon xil saaran guddigaas meel raay nagada guddigii gurmudka oo degdeg ah oo bilow hadda dareer hatta setamaankan hadda meel raay dareer wala ku yaaba meel raay in qaxooti badan qooyan maxamed cabdiraxmaan cabdulle TV-ga Somali Cable magaalada Baydhabo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo FDR Saraw hogaaminaya ayaa maanta waxay u dhoofeen wadanka Nigeria fafaahinta warkan waxaa magaalada Garowe ka soo diray wariyahayaga Jaamac Dabrani gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi iyo wafdi uu hogaaminayo oo heer baarlamaana ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Kanoko halkan ayuu wariyaasha kula hadlay gudoomiyaha Axmed Cali Xaashi waxaana uu sheegay in ay ku sii jeedaan dalka Nigeria halkaasi oo ay xiriir iyo waliba kulan aqoon kororsi ay kala qaadan doonaan baarlamaanka dalka Nigeria intii uu hadlayay waxa wax ka weydiinay hadii ay Puntland kaliya baarlamaankeedu u tagayo Nigeria iyo hadii ay jiraan in baarlamaanada Soomaaliya ee maamulada kale iyo kuwa federaalku ay ka qayb galayaan waxaana uu ku jawaabay maanta bishta 18 anoo baarlamaanka Puntland iyo shaqaalaha qayb kamid ah wafti shaqo waxaan ugu bixinaa dalka Nigeria halkaas aan ka soo qayb gali doono shir casuumadan ka helay baarlamaanka Nigeria muddo 5 cisho ah aan rajaynayaa shirkaas inuu nagu soo dhamaado isaaf garad iyo wax wada qabsi fiican waana markii horeysay aan xiriirka yeelano
insha allah rajayna inuu noo socon doono waxaa ka qayb galaya hadda Puntland kaliya ka qayb galaysa waa xiriir anaga iyo Puntland UN ku noo sameeyaan Nigeria hadii la yiraahdo waxa ugu muhiimsan oo gudoomiye laga hadli doona shirka federalism ka laga hadlaya anagu arday baan nahay iyana waa macallimiintii waxaan ka soo baranay insha allah shirkaas maadaama dawladda federaalka qayb ka tihiin ogtahay shirka weli waa madax ka madax banaanahay wixii aqoona waa markii koowaad ee baarlamaanka Puntland uu xiriir toos ah oo wada shaqayn iyo kala kororsi aqoon uu la yeesho baarlamaanka dalka Nigeria midaas oo uu gudoomiye Axmed Ali Xaashi ay sheegay in iyagu haatan ay bilaabeen waa Jaamac Dibaraani oo ka soo hadlaya Somali Cable Kanoko Airport Garowe wafdi ka socda guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka Soomaaliya ayaa maanta waxay gaareen magaalada Garowe sida faafahinta warkaan oo inoogu soo diray wariyahayaga Jaamac Dibaraani wafdi ka socda guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray Garowe waxaana garoonka diyaaradaha ee Kanoko ku soo dhaweeyay guddida doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland gudoonkooda iyo waliba gudoonka dalada ururada aan dawliga ahayn ee Bunsa si wada jira ay wariyaasha ula hadleen markay soo gaareen halkan oo ah hotelka Grand ee magaalada Garowe runtii wafdi aad u ballaaran oo mar doon gobolada Puntland oo dhan soo dhaweyntan waxaan leenahay ku soo dhawaada Garowe ku soo dhawaada Puntland waa wax weyn oo dadka Soomaaliyeed ay sugayeen arrimaha doorashooyinkan waa arrimaha caqabadaha ku ah dawladnimadeena iyo waxyaabahan sugayno soo dhawaada waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ku soo dhaweyno guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dawladda federaalka ee Soomaaliya runtii waa guul weyn maanta halkan aan ku soo dhaweyno guddigaas oo hogaaminaya Said Ali Sheekh Maxamed iyo Saciid Xaashi marka iyo tiimkii la socday oo yana kale waxaan sidaa darteed anagoo ku hadlay magaca guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland waxaan leenahay soo dhawaada dalkiina ma timaadeen Said Ali Sheekh Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka guddida doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa hadlay waxaana uu sheegay in ay u yimaadeen Garowe oo sidoo kalena gobollo kale u tagi doonaan xog ururin la xiriirta hirgelinta iyo nidaamka hirgelinta doorashada Soomaaliya waxaan u nimid magaalada Garowe iyo magaalooyin badan kale oo aan tagi doono in wada tashigii socday iyo wacyigelintii oo aan ka wadnay gobolada iyo degmooyinka dalka marka waxaan ku bilaabaynaa magaalada Garowe insha Allah qorshaha iyo sida aan u qaban doono iyo talagalka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan idin la wadaagi doonaa waqtiyada soo socda wacyigelinteena waxay ku saleysan tahay inaan caqabadaha jira iyo fursadaha aan haysano iyo qabashada doorashada 2020 si aan maaragtay ugu wada tashano bulshaduna rayigeeda aan uga qaadno oo aan la wadaagno madaxda qaranka oo arinta ka shirtay oo noo soo dirtay insha Allah muddada aan wadnay bil iyo bar bay hadda socotay marka inta noo dhimanna waa Puntland iyo qaybo kamid ah dalka oo magaalooyin qaarkood taasna waxaan ku soo afjari doonaa magaalada Muqdisho insha Allah caqabadaha waxaan ka sugaynaa dadweynaha inay noo sheegaan anagu taas waxaan u daynaynaa wada tashigan wuxuu u socdaa in caqabadaha jira laga doodo lagana hadlo marka dadweynaha ayaan ka sugaynaa marka insha Allah iyaga noo sheegi doona kadibna waxaan laga gaari doonaa hal siyaasadeed socdaalka guddida doorashooyinka madaxa bannaan xubnaha ka socda iyo gudoonku ay maanta ku yimaadeen Garowe waxa uu qayb ka yahay qiimeyn iyo xog ururin la xiriirta oo ay guddidu sameynayaan oo ay ka hirgelinayaan gobolada iyo maamulada dalka waxa ay ogaanayaan bal fahamka iyo waliba wacyigelinta iyo wacyiga ay dadku ka haystaan hirgelinta nidaamka doorasho hal qof iyo hal cod oo la hirgeliyo 2020 waa Jaamac Dibaraani oo ka soo hadlaya Somali Cable Garowe baarlamaanka Puntland maanta waxay ka hadleen arrinta Sool iyo Tukaraq oo Somaliland ay dhawaan kala wareegtay Puntland faafahinta warkaan waxa Garowe nooga soo diray wariyahayaga Ayuub Cabdikariin Cali baarlamaanka Puntland oo kulan ku yeeshay xaruntooda Garowe ayaa si buuxda u taageeray go'aanka xukuumadda Puntland ay ka qaadatay duulaankii Somaliland ku qabsatay deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool baarlamaanka go'aan soo saaray ayaa guddi u saaray xoreynta gobolka Sool waxaana dhammaan shacabka reer Puntland ku wargeliyeen inay ka qayb qaataan dagaalka lagu soo celinayo deegaanada ay Somaliland ka qabsatay Puntland ujeedo war-saxaafadeed kulan wada tashi iyo xog waraysi ay yeesheen xubnaha golaha wakiilada Puntland ee ku sugan caasimadda Garowe 17 bishii koowaad 2018 kaasoo lagaga tashanayay xaaladda colaadeed ee ka dhalatay duulaankii uu ku soo qaaday maamulka Somaliland 8 bishii koowaad 2018 dood iyo falanqeyn dheer ka bacdi
waxaa la isla qaatay qodobadan hoos ku qoran. kow, in la taageero qorshaha xukuumadda Puntland ay ugu jirto difaaca iyo sugidda amniga dhulka sida uu qabo qodobka 7 ee dastuurka Puntland. in baarlamaanka Puntland si dhow ula socdo xaaladda difaaca dalka waxaana loo magacaabay guddi gaar ah. 3, waxaa muwaadiniinta Puntland ku wargelinaynaa inay ka qayb qaadashada difaaca dalku yahay waajib dastuuri ah. sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo reer Puntland ah meel kasta uu joogo ka qayb qaadashada difaaca dalka Puntland. 4, waxaan ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta oo danaysa amniga iyo nabadda Soomaaliyeed ku wargelinaynaa in aanay Puntland diyaar u ahayn duulaan iyo colaad abuur kana shaqaynayso nabadda iyo daris wanaagga ummadda Soomaaliyeed iyo xasiloonida geeska Afrika. hase yeeshee ay waajib dastuuriya ku tahay difaaca ilaalinta dhulkeeda iyo muwaadiniinteeda sida shareecadda islaamka iyo qawaaniinta dawliga ay qabaan. sidaa darteed wixii dhibaato iyo cawaaqiximo ka dhasha duulaankaas uu mas-uuliyaddeeda qaadayo maamulka Somaliland. arrintaas waxa weeye waxaan maanta u bandhigaynaa saxaafadan u gelinaynaa in ummaddu ogaato duulaankan oo marar badan Somaliland soo qaaday muddadaa badanna ay ku soo qaaday xuduudaha Puntland. dadka Puntland ay dhib ku haysay in badan oo loo dulqaadanayay dulqaadkii wuxuu marayaa in ay yiraahdaan meelna celisaa ma jirto Puntland meeshaan doonaan tegi karayna. waxaan markaa dowladda xukuumadda Puntland madaxweynuhu ugu horeeyo waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay waajib dastuuriya tahay inay arrintaas meel mariyaan difaacaan dalka qaybihiisa hadhay xuduudihiisa dhammaantood. shirkani maanta wuxuu ku saabsan yahay arrintaas. waxaana leenahay muslim oo maqla ilaahu waad aragtaa wixii halkaa ka yimaada inay mas-uuliyaddeeda leeyihiin maamulka Somaliland oo ku mashquulay duulaanka iyo dhibaataynta guud ahaan Soomaali gaar ahaan Puntland. arrinkaasi waxa weeye wixii naga waajiba waa ka qaadanaynaa baarlamaankuna sidaas ku taageerayaan la soconaynaa. ayuub cabdikariin cali Somali Cable TV Garowe. qaar ka mid ah qareenada Somaliland ee ka howlgala maxkamadaha ayaa waxay cabasho ka muujiyeen xeerar uu dhawaan uu saxiixay madaxweynaha Somaliland oo aan weli si rasmi ah u dhaqan gelin. faafahinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Faisal Fifa. shirkoodan jiraayada wadajirka ugu qabteen halkan waa hotel xaraf magaalada Hargeysa. xubnaani oo ka mid ah qareenada ka howlgala maxkamadaha kala duwan ee dalka isla markaana qaybka ururka qareenada Somaliland kana mid ahayn Guuled Axmed Jaamac Guuled Dafaac Mubaarak Cabdi Maxamed Abukar iyo sidoo kale xogeyaha guud ee ururka qareenada Somaliland ay waxay cabasho xoogan ka muujiyeen xeerka booliiska oo tilmaameen in madaxweynaha Somaliland uu ka soo gudbay isla markaana ashqaas gaar oo xukuumadda ka tirsan ilaa hadda cagtiidayaan sidii aanu bulshada u soo gaari lahayn. waa sida hadalkooda u dhigeen. iyo ururka qareenada Somaliland iyo ururada xuquuqlisaanka wadooda ay daba socdeen in ansixintiisa waliba dhib badan u mareen muddo imaka 5 sano ku dhow. xeerkaasi labada arrimood ugu muhiimsan waxa weeye in la helo booliiska meel looga cawdo iyo in booliiska laga joojiyo xabadda nool ee xilliga mudaharaadyada ama marka wax dhacaan uu bulshada la dhacayo. taasi caqabado badan baa nagala kulmay. waxay gaadhay markii horeysay la ansixiyay in madaxweynaha uu dib u soo celiyo xilligii xukuumaddii hore. soo celintaasi baarlamaanku awood kale leeyahay. madaxweynuhu markuu soo celiyo baarlamaanku waxay awood u leeyihiin 2/3 marka 3 meelood oo laba marka golaha wakiilada inay dib ugu celin karaan. awooddaasi haddii gaari waayeen 3 meelood oo laba kuma celin karaan marka tii madaxweynuhu doonay ayay noqonaysaa. laakiin haddii u helaan tiradooda 3 meelood oo laba xeerkaasi saas u dhaqangal ku noqonaya awoodna uma laha madaxweynuhu inuu soo celiyo. iyadoo labada qodob booliisku aad uga cabanayo ama dadka kale waxaad moodaa qaabkii kaligiitaliska weli inaynu jecelay in faafinta rasmigeed. haddaba waxaan leenahay gariiqaanka guud oo ah nin sharci yaqaana furuucdana aqoon badan u leh waxaad moodaa maanta xilka uu hayo waxay tay ma garan karno laakiin inuu wax badan leexinayo oo talooyinka madaxweynaha xagga sharci ku siinayo iyo xeerarkaba inuu wax badan
leexinayo waxaan leenahay xeerkaasi siisa ha lagu dhaqangeliyo maanta haddii isbaaro laga dhigto oo dhulka la dhigo dee wuxuu tarayay sabab allaale sabab loo soo saaray ma jirto sidoo kale golaha baarlamaanka isagana waxaan ugu baqanaa weliba guddidiisa khusaysa war xeerarka ansixisaan maaha dhulka in la dhigan karo waa inaad cidda mas-uuliyaddana ku daba gashaan xeerkii ma dhaqan galay bulshada ma anfacaya haddii xeer kasta inta la ansixay maanta boqolaal xeer aynu leenahay somaliland dad badan waxay moodaan inaan xeer la ansixin war xeer waa la ansixiyaa laakiin xeer walba cidda u yar aragtay inuu markaa caqabad ku yahay ayaa meel dhiganaysa aba ha wanaagsanaato intaas weey si kale aan dhigano su'aalahaas oo dhan gareeqaanka iyo dadka hortaagan aad sheegteen intiidan warbaahinta soo hor istaagin si gaar ah muulo kulanteen ma kala hadasheen waxay hortaagan idin sheegan bismillah kalamaan hadlin sababtoo ah de gareeqaanka guud isaga shuruudii aan filayaa inuu nooga aqoon badan yahay oo de waajib baa saaran qofkana waajibka saaran de anigu lama aha in loo iftiimiyo oo waajibkii saaran isaga lagu xisaabtamo shaqadiisa oo mandatekiisa way xeerarku waxay rasmi noqdaan markuu baarlamaanku ansixiyo madaxweynuhu saxeexo isla markaana faafinta rasmiga lagu soo saaro macnaha faafinta rasmiga waxa weyn xeerkii la daabaco oo dadkii gaadho annagu shacab baan halka banaanka ka joognaa marka xeerarkii dibadda noo yimaadaan banaankaanu kaleena soo gaadhaan ay wax ka oran karnaa laakiin waxaan u aragnaa xeerkii baarlamaanku ansixiyay awoodda sharci lahaa ee madaxweynuhu saxeexay in la diidan yahay inuu ku soo baxo faafintii rasmiga ahayd marka faafintii rasmiga muddada xeerku dhigayaan waxa weeye madaxweynuhu 12 shaqo ku saxeexo isla maalinka 12 ama 13 maalmaha ku xigaba in faafinta rasmiga ku soo baxo marka dad badan ku mushaar qato waajib ka saaray marka waajibkaanu kuma aan daba galino madaxweynaha tiin ku xisaabtamo xafiiskiisa oo kula idinka sharciga qaabilsanay idinku maxay faafinta rasmiga ugu soo saari weydeen marka annagu hadda markii ayagu dhaqaajin waayeen ka hadli waayeen ama aragnay inaan cid daba galin ayun baan u sameynay iftiiminta si balan xasuusino hadii ilaaween qaranadu waxay sidoo kale madaxweynaha ugu baaqeen inuu dib u eegis ku sameeyo digreetooyin ka soo baxay xafiiskiisa oo wax ka bedel lagu sameeyay xeerar hore hab sharciya baarlamaanka uga soo gudbay waxaan markaa ku soo ururin lahaa war arrimaha dhacay ee digreetada xeerarka lagu bedelayna hala saxo wixii damana de tala sharci laga yeesho markii wax la bedelayo xeer jiro taanu xeer jirin in hay'adda aanu xeer jirin madaxweynuhu digreet ku bedeli karaa uu ka qaadi karaa meel kale u geyn karaa laakiin hadday xeer leedahay xeerku wuxuu u baahan yahay in xeer dejintii lagu celiyo amiinna laga sameeyo arrinta aan marka madaxweynena kolley waxaan ugu gudbin doonaa qoraal wixii sharciya iyo wixii iminka la sameeyey wixii aanu ka leenahayba qoraalna waan ugu gudbinaynaa dadkana waa u gudbinaynaa mid walba waxay lahayd mandate tii institutionkii minadayaasha caafimaadka ka mid ah oo la hoosgeeyey wasaaradda caafimaadka wasaaradduna dee xeer bay lahayd sidii la isu waafajin lahaabaa muhiim ah marka waxa weeye institutionadii waan ogolahay in institution lagu daro ama wasaarad hay'ad lagu daro laakiin waxa weeye qaabkii loo marayay xeerkeedina wax laga bedelo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safar ugu maqnaa dalka Itoobiya ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Hargeysa sida warbixinta warkan magaalada Hargeysa oo inooga soo diray wariyahayaga Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo socdaal lagu maqnaa 48 saacadood laga soo gudbay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka dariska la Soomaaliland ee Itoobiya iyo goor dambe oo casarliiqii galabta dib ugu soo kada noqday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland kadib markii uu soo dhameystay socdaalka ugu maqnaa dalka Itoobiya oo ku welinayay xubno kamid ah gurihiisa wasiirada isla markaana uu la soo qaatay kulan gaar ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn salaan sharaf u ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka kasoo waxa warfidyeenada qolka nasashada VIP ee madaarka Igaal kula hadlay wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faraton isagoo faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii kulankaasi laga wada hadlay maxay tahay arrimihii laga wada hadlayay guulaya ku dhamaadeen si wanaagsan baa looga wada hadlay Prime Ministerka iyo dawladdiisa iyo dhammaan laamaha dawladda muhiimka ah ee aan markaa danuhu naga dhaxeeyeen waanu iswada aragnay waanu ka wada hadalay arrimo badan baan isla soo qaadnay markii aan shirarka guud ku jiray iyo markii aanu gaargaarka loo shirayba madaxweynaha iyo Prime Ministerku gaar bay soo hadleen soo arkeen wasiirada hadii aanu nahay dhigay kuwii wasiirada dhigayaga ahaa baanu iyagana la kulmaynay mar walba arrimo badan baa laga wada hadlay hadii aan soo idin guud maro oo soo koobo kuwa ugu muhiimsanaa waxa kamid ah xagga nabadgelyada oo labada dal mar walba iska kaashan jireen
oo in lala wada dagaalamo oo layska kaashado la dagaalanka argagixisada iyo wixii kale ee nabadgelyada labada dal fadqalalaynaya ama dhibaato u keenaya ayaa ka mid ahaa arrimo badan oo kale laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa ugu muhiimsanaa kuwa ganacsiga iyo dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo isku xidhkooda waxaa laga wada hadlay maxaato dhiskii iyo ballaarintii dekedii cusbayda la dhisayey taraysa sida dhakhaatiirta oo kale injineerada oo kale hydrologist iyo xagga biyaha iyo macdanta baaristooda oo kale maxaato iskuullada farsamada iyo wixii la mid ah arrimaha caynkaasoo waxtarka dalka u leh in loo ridayo horumarkiisa wax ka taraya arrimahaas ayaa ka mid ahaa arrimahaanu meesha kala hadalay tafaasiishooda maxaato dee meeshay ku habboon tahay iyo waxyaha ay khusayso ayaa lagaga hadli doonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan daawadayaal warbixin ku saabsan wiil yar oo gacmo la-aan ku dhashay lugahana cuntada ku cuna muqdisho waxaa kula kulmay weriyahayaga cabdulaahi axmed catoosh warbixintaana inooga diyaariyey. abuurista eebe ee aadanaha iyo guud ahaan makhluuqaba waa mucjisaad rabbaani ah una gaar ah alla weyne. wardheere daahir maxamed waa 4 sano jir cuntada ku cuna lugaha aan ku socono badankeen ee sida caasiska ah aynu kula dullaafiyoon xamdi la'aan ciidda dusheeda. wardheere oo ah wiilkan yar ee kuu muuqda waxa uu ku dhashay gacmo la'aan xaalad caafimaad dara darteed ayaana looga keenay gobolka baay. qoyska wardheere oo ah kuwo danyar ah walaal Soomaaliyeed ayaa la dartii ugu caawiyay in wiilkan muqdisho la keeno. inkastoo ay soo hagaagayso xaaladiisa caafimaad haddana wardheere iyo qoyskiisaba waxay u baahan yihiin caawimaad aan kala har lahayn. magacay meelahay daahir maxamed abdinuur wiilkan meelahay wardheere daahir maxamed abdinuur markan magaalada Gasac dheer u kooni wiilku oo xanuunsanaay markan magaalada Baydhabo aan qaaday iyadoo aan xanuunsanaay meela isbitaal la jeeyay oo shurumbiyaal ay wala lahaan qori haddana kudib magaalada Xamar isbitaal la lahaan qaaday iyadoo aan xanuunsanaay hadda waxa yaro xoogaha aragtay caafimaad yaa ka sir ahaan galahayaan waana iyada nafaq darri idan hayti markan magaalada Gasac dheer ku sheegay hooyadiisna booso qof ayana idilay rooga xaafaddeena ka jiraaw ma qof meeladayo ideegadayo magaalada walaal qofso karo aalada biiko jiiso karo in kasta awlaadi ahmaalada korma dad badan ayaa ku daawanaya xaaladda wiilkaaga way arkeen maxaa ka codsanaysaa dadkaasi may ka codsadeen intii aragtay liiga balo hay'adaha in kasta liiga balo li kaalmay aragtay in kasta lamba wal ilaahay uu qaado li kaalmay aan baahan. alla weyne waa qani awood buuxda u leh kaafinta makhluuqiisa oo dhan umana uusan waayin gacmo inankani balse wardheere yare waa muujiso oo miqaadasho u ah qof walba oo arka dabcan kaa way u dhammaystiran yihiin 6diisa lixaad. qadarta iyo qoraalka rabbi qofna gaar uma laha
laakiin waxaa lagu kala qanisan yahay qanaacada qasadka eebe wardheeryare iyo qoyskiisuba waxay u baahan yihiin in la taakuleeyo aynu iscaawina ciidanooma maqnee cabdulaahi axmed atoosh Somali Cable TV muqdisho. munaasabad lagu daafurayay waxbarasho bilaash oo ardayda Soomaaliland loogu darayo wadanka Malaysia ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sida warkan magaalada Hargeysa oo inooga soo diray wariyahayaga Faisal Fifa. kulankani balaaran oo mid galeelidiisa qurxoon looga soo shaqeeyay isla markaana ujeedadiisa guud iyo dawladdiisa gaaraneed ahayd mid daaran daafurka waxbarasho bilaash oo loogu talagalay inay helaan ardayda wax ka barata dugsiyada sare deegaanada kala duwan ee Soomaaliland una fidisa jaamacadda UCSI University fadhigeedu yahay ariga dalka Malaysia Google xarkeeda iyo sidoo kale hirgelinteedana qayb la xadlay ka qaateen ururka lagu magacaabo Quality Education and Training Consultancy oo dhaqdhaqaaqa dhanka waxbarashada da'yarta iyo sidoo kale tayinteeda kana diiwaan gashan dalka Malaysia ayaa saaka lagu qabtay mid ka mid ah howlka Hotel Safari ee magaalada Hargeysa waxaana kulanka wadajir uga soo qayb galay madaxda UCSI University horjoogayaasha maamulka ururka Quality Education Training and Consultancy xubno ka mid ah saraakiisha wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale qaybo ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare ee deegaanada Soomaaliland oo aan kaliya Hargeysa ku ekayn kana soo kala socdaalay deegaano kala duwan waxaana halka ugu horeyn ka hadlay isla markaana sharaxaad dheeriye ka bixiyay kulankan iyo ahmiyadda gaar ahaaneed ee u leeyahay waxbarashada dugsiyada sare iyo da'yarta xilligan ku fogan qalinka iyo buugga Abdullahi Diiriye Liban oo ka mid ah horjoogayaasha ururka Quality Education and Training Consultancy ma aha daruuri maadaama ay dee iskuuladeena wada haysanba ama aan lagu wada dhigan oo aan la raacin systemka taasi waa talabaad ee ah arinta labada imtixaanka iskuulku qaadayo iyo ka dawladdu qaadayso scholarshipkan wuxuu ku base gareysan yahay ka iskuulku qaadayo magaca halka ka muuqda waa principal marka inta badan awoodihii scholarshipku wuxuu gacanta ugu jirayaa maamulaha iskuulka maamulaha oo marka aanu ka filayno inuu la iman doono mas'uuliyadeedii insha Allah ardayda iskuulka imtixaankii uu qaaday ugu sareysay ayuu maamuluhu soo liskareynaya isaga u xora marka numberka inta yihiin 10 bay noqon karaan 20 bay noqon karaan 15 bay noqon karaan uu ka badin karaa waayo waxa ka dambeeyo daba socda waa interviewgii ayaa daba socda marka waxa loo baahan yahay waxa weeyaan waa natiijadii saxda ahayd ee ka soo baxday imtixaanka iskuulka laga qaaday oo ama imtixaan ku dhowdhow ama u dhigmaba kii dawladda maadaama uu yahay examkii hore ee ka horeeyay ka dawladda hadalnay laftarkooda ardayga waxay yiraahdeen waxaan u samayn karnaa un bay discount 25% discount ayay u samayn karaan ardayda wixii sanadkii hore baxay waliba gaar ahaan ardayda grade-koodu fiicnaa laakiin scholarship-kan iyo barnaamijkan wuxuu bilaabmayaa sanadkan ardayda form 4 ka ah ee ku jira ayaa lagu bilaabayaa interview-ga markay qaadaan kadibna ardaygu wuxuu marka ardaygii loo sheegay intii uu helay wuxuu bixinayaa $100 oo ah diiwaan gelin waa intii ay ku sheegtay lacagta Maleeshiyaanka $100 buu noqonayaa waa marka loo sheegay ardaygii inuu wixii helay tusaalaha kale wuxuu helay 75% buu helay ardaygii waa la gaarsiiyay marka $100 ayuu bixinayaa oo uu leeyahay wixii waan aqbalay inta markuu aqbala kadib waxa imanaya visa inta badan hay'ad gooni oo immigration shaqo ku leh marka iyagu waxaan scholarship-ka siinayaan waxyaabaha inaga bixin maayaan waxay naga bixinayaan waxa weeye waa wixii la xiriiray waxbarashada ay naga bixinayaan laakiin wixii kale dheeraad ahaa iyagu ardaygu isaga iska bixinaya visa Malaysia kale waa lacag u dhaxaysa ilaa $600 meelaha waan filayaa inaad la socotaan lacagta ardaygu isaga iska shubaya suu fiisihiisii uu ku joogay wadanka u helo hooygiisa oo kale ardaygu isaga iska bixinaya iyo meeshuu degayay markuu xaga tago isaga iska bixinaya iyagu waxay ka bixinayaan waxa weeyaan waa wixii fiiga jaamacadda la xiriira dhankiisa waxa isaguna halka ka hadlay Cilmi Maxamed Muuse isduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Maroodijeeh isaguna tilmaamay inay tahay talaabo hore loo qaaday isla markaana guul u noqon doonta daayirta wax ka barata dugsiyada Soomaaliland waxaanu u mahadceliyay ururka soo agaasimay iyo sidoo kale jaamacadda hirgelinaysa programkan oo ah program aad u faa'iido badan oo aan filayo inaynu aad iyo aad uga macaash doono oo scholarship uu ku jiro oo maamulaha la xiriiray ardaydeenaba waxa loo baahan yahay inta aynu halkan ku suganahay inaynu sida ugu wanaagsan uga faa'iideysano maskaxda si wanaagsan aynu tuujino Professor Dr. Jimmy Mock iyo sidoo kale Farax Faisal oo ka mid ah madaxda jaamacadda UCSI University oo dhankooda halka ka hadlay
ayaa waxay xuseen inay wadamo kala duwan ka howlgalaan islamarkaana xilligan halkan u yimaadeen sidii daayirta wax uga barata dugsiyada sare ee deegaanada somalilan ay uga taageeri lahayn waxbarasho dibadeed iyagoona xusay inaanay hay markii ugu horreysay halkan socdaal ku yimaadaan waxaanay dhanka kale hoosta ka xariiqeen in 25% ay ka taageeri doonaan waxbarashada ardaydii hore uga baxday dugsiyada sare ee deegaanada somalilan kuna faraxsan imaashiyahooda somalilan ma aha dadka guulaysanaya maraykan mana aha ingiriis mana noqon doonaan maleeshiyaan ee waa somalilan dariska berito la noqonayo hogaamiyaasha waxaanan idiin rajaynayaa guul sidaasina waxaa hadalkiisa kusoo gunaanaday dr jimmy not because they are English people, not because they are Malaysian. The success of our university is because these are Somalilanders and Somalian, that they are leaders for the future. kulankan ayaa noqonaya mid noociisa ku cusub ee deegaanada Somaliland marka la barbardhigo waa markii ugu horeysay ee kulan noocan oo kala ku Hargeysa laga hirgeliyo isla markaana fursad hor loo noqon kara ardayda wax ka barata xilligan dugsiyada sare ee deegaanada Somaliland iyo kuwii hore uga soo baxay Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa guud ahaan daawadayaal wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishinka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi oo idin akhrinaya aniga Cabdullaahi Axmed Cali intaas ayaan ku soo gabagabeynaa aniga wariyaashii la qayb qaatay dhamaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo